kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka taxanaha ahaa ee qaybtii saddexaad oo kala dareeray Native Somali TV iwaanjana ahay may Somali jariirta degaas dalka Soomaaliya horumar aan sameeyay waaysinta siib horay in ku soo waragni barnaamijka qaybtiisa koowaad iyo lamaad iyo may siin sheegnay in Somali jariirta la ilaali jiray afar qodobood balse iyo dareensanayn taasi iyo naqati aqwada ankuwiin Somali jariirta waxyaabaha dibka dhigi Allah quraanka may ka sheegay in isku mid ahayn qof wal baradi iyo qof wal barana mayna daliil ngate qul hal yastawi alladheena ya'lamuna wal ladheena la ya'lamun markii shaqeeyo galeen mashaariicdii lanka talagali in Somali jariirta la kaga ilaaliyo siyaasadda ilaha dhaqaalaha waxbarashada iyo militariga iyo waxa shaqaale ahaan loo qoray dhammaan dadkii deegaanka roogayeen yar iyo wiin rag iyo dumarba tusaale ahaan 7 ilaa 10 jir may ka shaqeeyay beeraha bariis mayna beero bariiska ku waardiyay jiray shimbirta bariiska amase 10 ilaa 14 jirna may ka shaqeeyay beeraha qasabka asagoo waraabiyaa qasabka oo guraaw sidoo kale 14 jir iyo wali kiwiina may ka shaqeeyeen warshad iyo wali unuga 7 ilaa 10 jir andhahayd daadis hadii usla dhaho tusaale ahaan iskuul iyo shaqo unugu may doorade ina usu shaqo sababtoo ah ma ogyo faa'iidada iskuulka ileen iskuulka faa'iidis may la hele markii aad wal barato kadib laakiin shaqada faa'iidada may la hele markii shaqada ka sabaxaasa hasaate wadanka may ka jiraayay dawlad oo waxbarashada ayaalka ka bedeli beer shimbir ku dhuurow waxaana waajibka ahayd dawladda markaasi ka aramiyay dalka Soomaaliya in iskuul ka dhiso deegaanada ilmoogas ruugan balse may qaaday madaxweynaha asagoo raaca balantii asaga kala galay Talyaaniga iyo Ingiriiska in mashaariic waaweyn la hirgeliyo ilmoona bedelkii iskuul landiro beer shimbir ku dhuurow taasna waa sababta kuwiin oo maanta Somali jariirta dalka Soomaaliya iyo dunida meel walba iyo kuruugan la ka caayoy la ka liidoy la ka yasooy la ka dhaliiloy daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan may inka tagee hadii iyo ila dareereen barnaamijka qaybtiisa koowaad lamaad iyo tan oo hadda anaga ku soo darnay oo saddexaad in barnaamijka ila wadaagan asxaabtiyo page-kana subscribe saaran comment-na nin reeban si anaga helno waxyaabaha anaga ka qaldan iyo waxyaabaha anaga ka saxan irigelin ninka naqto tan iyo barnaamijka taxanaha intii dib iskiin kooyana waa anigoo ah wariye Yusuf Dabyambo oo siin lay sidaas iyo nabadgeliyo